gudoomiyaha shirkadda ganacsiga ee Star Group Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa hambalyo u diray gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom Cabdikariin Maxamed oo ku guuleystay hogaamiyaha ugu wanaagsan ee shirkadaha tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta ee qaaradda Afrika abaalmarintaasi oo loo yaqaano Africacom taasoo lagu gudoonsiiyay dalka Koonfur Afrika. Hore waxaynu u mahadnaqaynaa Ilaahay mar labaad waxaan doonayaa halkan inaan hambalyo uga dirayo bogaadin gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed oo ku guuleystay hogaaminta wanaagsan ee Afrika dhinaca horumarinta isgaarsiinta tiknoolajiyada kaasoo ka dhacday South Africa 14 bisha kana soo qayb galeen kumaan kun qof oo isgaarsiinta caalamiga isugu jira. waxaan leeyahay hambalyo waxa kale oo hambalyeenaya dadka af Soomaaliga ku hadla meel kasta ay kala joogaan iyo dadka reer Somaliland iyo dawladda Somaliland waxaan leeyahay iyo shirkadda Telesom waxaan leeyahay hambalyo waxaanay wax badan u tari doontaa shirkadaha isgaarsiinta Somaliland iyo dadka ganacsatada reer Somaliland wixii wanaagsan qofka soo horseeda waa la iskaga daydaa dayasho wanaagsan baad muujisay qofkii maadaama uu noqday qofkii ugu horeeyay ee afka Soomaali ku hadlay darajada gaara mid ka sareysana waa la gaari doonaa insha Allah waxaan leeyahay hawl wanaagsan baad soo hoysay ummadda afka Soomaaliga ku hadasha iyo ummadda Somalilandna wax tarbay u tahay aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaa waanaanu kuugu soo dhaweynaynaa waanaanu kuugu ducaynaynaa waxa kale oo aad magac ugu soo hoygoynta dhammaan shirkadaha isgaarsiinta Somaliland oo leeyahay waa wax soo kordhay oo magac iyo mustaqbal wanaagsan leh waxa kale oo aad wax ugu taraysaa dadka maadaama nin ganacsada ahaa dadka ganacsatada reer Somaliland in ay hiigsadaan halka iyo hal ka sareysaba waayo qofka wanaaga soo kordhiya in laga daydo dadka wanaag u horseeda taa iyo mid kale ba inay sii gaarno waayo waxaad maanta ogtahay waa markii ugu horeysay ee qof Soomaali ku hadla uu gaadho darajada